هارون الرشيد وحوها دولة العباسية حل جديبها وحربنا وقرن قل بعض أحمد عيسي وحا يمد نندختر الرومانا نندختر عدانا ويمد مركاسو لك افتمو وحول أيها الملك بقروا بكل هاي قرآن كي نوانا يقول علم الأديان بكور رماية علم الأبدان كمور رماية علم الأبدان ونختر لماذا قرآن كوحو كور رماية مركان دقيستي الأديان بس آخرة جنة شريعة أحكام صلاة زكاة حجك وحاوم كور رماية بالقرآن كي لكن نختر لماذا كمور رماية بالقرآن كي هارون الرشيد أيها يدي الله ونحرسته آيات بركين أيها إلهي علمك نختر لماذا ونبوك كور رماية آيات بركين سكدا آيات لما يسرني وآيات دي كلوا واشربوا ولا تصرفوا إن الله لا يحب المسرفين إنه لا يحب المسرفين كلوا عنبا إلى هذا عنتلا واشربوا عبا ولا تصرفوا لكن أكون إسرافنا إلى هذا آيات دي بالله شرح الله معنى نكي دخترك وحيري والله وارون بيقول القرآن كو هدا وحبك ما تجين بيقول وحبك القرآن كو مريبين بقى waxaan annagu aan dhakhtarnimada aan ku gaadhnay buu aqoon oo xaqiiqadii aan soo taabanay xanuunada bini aadanka qabto oo dhan waxay ka bilaabmaan caloosha ka bilaabmaan ma malaa ibnu aadama ba nabigu yahay wa'an asharra min badnihi ba nabigu ina aadan mabuuxin wal ka shar badan calooshiisa hadii uu kama maarmaysaan cunto buu nabigu yiri oo kulli cunto iyo acab kama maarmaysaane in yar dhabarkaad ku tiirisaan cunabu nabigu yiriyo calooshiina saddex qaybiya qaybna biyaha ugu talagala qaybna cunnada ugu talagala qaybna nafaska ugu talagala iyo hawada nin caraba ayaa la sheegay oo maaragtaan diinta islaamka aad aan u aqoonin oo carabta iska cilmaaniyiintaaya laakiin muslima dhakhtar buu u tagay wadanka Germany xanuunadiisa markii la baaray ee checkin lagu sameeyay waxa la ogaaday inuu xanuunkiisan dhanba uu ka bilaamayo caloosha marka ninkii dhakhtarka ahaa baa ku yiri عربية ما تقانا لغة عربية هوانا قانا آخر سبو كيدي مارك تاني وانك بروفيسور كي جرمال كنوا ودن كي وودن كي أدون كدختر لماذا وقهروا مرسبة لي بروفيسور دن أيا كل أقبل هلك آخر سو لغة عربية هذا تقانا مركزو وحكوكر اللي قال النبي أوران مايانه قال دكتور محمد بيد هذا مركز طبيب محمد وحويري إنا آذن مبوحين والكسر بدن علوشيسا حديث كان دان أخريي نبو أخريي markaabuu ninkii u sawirtay markuu masaajidii yimiday ayuu dadkii weydiiyay ku yiri war dhakhtarkan carabta ka dhashay ee dhakhtarada adduunyada ugu qiimo badan ee ugu qaalisan ee ugu aqoon badan xafiisyadooda erayadiisa ay ku qorteen in annagoo caraba aan garan laanahay waa kuma markaasaa lagu yiri bal erayada soo qorateen tus xadiiskii nabigu akhriyay markaasaa lagu yiri yaa jaahil murakkab ma nabigaagi maxamed alayhi salaatu wassalaam ayaad garan weyday baa lagu yiri qowlkiisa والله دخترادو مانتا أدونك دخترادو ويباتين هوسبيتالادونا ويباتين داودونا ويبادتي بكانكم مو يرانا يا مسوم بيريا بلي شيء وسي زياده كنت سنه كور سيديت سنه كور waxa laga yaabaa magaalada Beedham in la maqli jiray oo hebel leeyahay xanuunsan hal loo duceeyo maanta aqal walba waxa laga yaabaa haday 7 qof ku nooshahay 5 baa bugto xanuunsan markaas dhakhtaradii khaatiyaan billahi bay noqdeen dawadiina qish bay noqotay qish laba qolo qishka ka shaqeeyaan waa ganacsatada raashinka keenta raashinka keenayana waa raashin kiimikaal waxay noo keenaan qolada dawada keenaysa dawo sax ma keenaan illa man rahima rabbi dadna dhakhtaradii way daaleen markaas dadka kula taliyaan laba shay waxay u nin cuntadana iska yareen socodkana badsada magaalooyinka caasimadaha adduunka waxaad arkaysaa ganacsatadii iyo tujaartii iyo madaxdii odayaacaysa iyo dumarkooda reemiga ka warrama reemiga orad muu baahan yahay war muu baahan yahay iyo caafimaad badan maree magaalka caafimaad badan mise reer baadiyo maxay ku caafimaad bateen waa labadaas sifay leeyihiin cunto yar iyo socod badan bay leeyihiin shaqo badan bay leeyihiin waxaa la ogaaday nolosha dabiiciga in loo noqdo mooyaane noloshan adduunyada aan leenahay waa horumar oo gaadhigaagii baa isfuraya oo aqalkaagii baa isfuraya oo sariirtaadii baa islaalaabaysa oo diyaaradii baad caalamka meel walba ku geynaysa oo adduunka maqal iyo muuqaal baad kula xidhiidhaysa
وزوم باشرك الله قلاي والله هرومر اللي ليه هرومر كي جارين ما كورونا سكي علينا